ummad waliba waxay horumar ku gaartaa dadkeeda oo akhriska badiya aqoon fiican leh waana tan maanta dawladaha caalamka ay ku kala hormareen diinteena macaani islaamka waxay nagu baraarujidaa aqrintu inay tahay nolosha qofka oo dhan waana tan la amray nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ereygii ugu horeeyay ee la faray rasuulkeena waxa uu ahaa wax akhri taasna waa fariin guud oo ku socota muslimiinta haddaba maanta barnaamijkeena xogdan waxaan kuugu soo gudbin doonaa ama aan kugula wadaagi doonaa faa'iidooyinka laga dhaxlo wax akhrinta kuwaas oo laga soo xigtay dadyow ku guuleysay nolosha oo ku hodmay dabcan wax akhriska fadlan haddii muuqaalku soo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna dhiirigelin ayay noo tahay ku soo dhawow barnaamijka oo faahfaahsan mar la weydiiyay suugayahankii caanka ah ee reer Masar Cabbaas Maxamuud Cabqaad oo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1889 ilaa 1964 sababtu uu jecel yahay wax akhriska waxa uu ku jawaabay uma akhriyo si aan wax u qoro umana akhriyo si aan cilmi u kororsado waxaase wax u akhriyaa si aan u helo wax ka badan hal nolol adduunyada qof walba waxa uu leeyahay hal nololna aniga iguma filna akhrisku waa shayga kaliya ee siiya noolaha wax ka badan hal nolol waayo nolosha ayuu macneeyaa qofka wuxuu leeyahay hal fikir hal dareen iyo hal suurayn oo kali ah yacni qiyaali laakiin fikradaadu marka ay la kulanto fikrad kale dareenkaaguna uu la kulmo dareen kale suurayntaaduna ay la kulanto suurayn kale waxaa dhasha laba fikradood laba dareen iyo laba suurayn maya ma aha laba fikir oo kali ah balse waxaa kulmaya kun fikradood oo kuu yeelaya awood sidoo kale aqoonyahankii ingiriiska ahaa ee lagu magacaabi jiray Gilbert White oo noolaa intii u dhaxaysay 1720 ilaa 1793 waxa uu yiri buugtu kuma koobna uun warqado la isku geeyo oo dhintay balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxayo cod marka aad kala furto buugaagta waxaad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imaanaya dadyow kala noolaa qarniyo kala gedisan kadib waxaad dhagaysan doontaa sheekadooda gabyaa Maraykan ah ayaa waxa laga hayaa oraa ah waa inaan wax akhrinaa si aan awood u kororsano qofka wax akhriya noloshiisa waa iftiin buuguna waa weel uu ka soo burqanaya ilayska dibna buux dhaafinaya gacmaha qofka wax akhrinaya sidoo kale culimadii hore ee islaamka akhrisku waxa uu agtooda ka ahaa shay kaga qaalisan wax walba buugtuna meel weyn ayay kaga jireen nolol maalmeedkooda waxa la yiraahdaa ibn Mubarak ayaa mar lagu yiri maxaad saxaabtaada ula fariisan weydaa markaas ayuu ku jawaabay waxaan la fariistaa saxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam taasoo uga jeedo inuu akhriyo taariikhdooda mar kale ayaa lagu yiri salaada marka aan ka baxno maxaad la carartaa ee aad noola fariisan weydaa waxa uu ku jawaabay waxaan la fariistaa saxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo taabiciintii imaamkii weynaa ee lagu magacaabi jiray ibnu Shihaab al-Sahari Allah raxmadee waxa laga sheegaa inuu aruurin jiray buugaagta kadibna uu siin jiray waqti aad u fara badan ilaa ay xaaskiisa ka cabatay waxa kale oo la sheegaa Xasan al-Luluwi inuu yiri muddo 40 sano ah ma seexan habeen ilaa buug uu laabtayda saaran yahay mooyee haddaba su'aasha aan isweydiinayno waxay tahay akhrisku ma furaha ilbaxnimada dabcan ها waxaa jirta dhowr fikradood oo aan ka soo kala aruurinay mufakkiriin adduunka soo maray kuwaas oo ku hodmay wax akhriska fikradahaas waxaad kala soo dhaxbixi kartaa ama aad kala dhaxbixin kartaa ama aad ka dheehan kartaa ilbaxnimada lagu sheegay inay ka bilaabato akhriska bal aan hore u galno mar ayaa la weydiiyay Voltaire oo ahaa filosof Faransiis ahaa cidda hogaamin doonta dunida waxa uu ku jawaabay cidda garanaysa sida wax loo akhriyo ayaa hogaamin doonta dunida sidoo kale madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ninkii lagu magacaabi jiray Jefferson waxa uu lahaa oraah caan ah oo oran jirtay kaliya kuwa wax akhriya ayaa xor ah waayo akhrisku waxa uu eryadaa jahliga iyo khuraafaadka si lamida Montesquieu oo ahaa mufakkir Faransiis ah ayaa mar waxa uu yiri si aad in yar u ogaatid in badan akhri mar kale mar la weydiiyay Socrates filosof u dhashay dalka Greek waxa uu ku xukumay qofka ama ku qiimeeyo waxa uu ku jawaabay waxaan weydiiyaa inta buug ee uu akhriyay sidaasi lamida filosof Chinese oo lagu magacaabi jiray Confucius waxa uu yiri si kasta oo aad u tahay mashquul waa inaad waqti siisaa akhriska haddii kale waxaad nafsadaada u horseeday jahli iyo baaba hagaag haddaba waa maxay faa'iidooyinka laga dhaxlo wax akhriska haddii aan isla garanay in akhrisku uu muhiim u yahay nolosha aadamaha badanaana dadka guuleystay ay ku hodmeen bal iminkana aan wax yar ka taabanna qaar ka mid ah faa'iidooyinkiisa
akhriska waxaad ka helaysaa warbixino cusub iyo sidoo kale dabcan wadooyin cusub oo aad wax ku xallin kartid sidoo kale akhriska waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonidaada samaynta qorshayaal cusub iyo dabcan nidaaminta noloshaada akhriska waxa uu kor u qaadaa fahamka maskaxdaada waxa uuna ku siiyaa qaabab cusub oo aanad horay u aqoonin kuwaasoo dabcan aad wax ku fahmi kartid akhriska waxaa laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan taasoo ay kula wadaagayaan dadka qoray hadba buugga aad akhrinaysid akhrisku waxa uu ku barayaa xasiloonida deganaanta iyo ka fiirsashada ka hor inta aadan ku dhaqaaqin waxyaabo fara badan haddaba daawada aan ku weydiiyo hal su'aal ma jira ayaad isleedahay qof aan garanayn sida wax loo cuno sida wax loo cabo ama qofku oranaya waqti igu filan oo aan wax ku cuno ama aan wax ku cabo ma haysto طبعا taasi ma aha mid suuragala sidaas si lamida weeye akhriskuna haddii aad tiraahdid waqti ugu filan ayaan u waayay wax akhriska ama waqti ayaan u waayay inaan wax akhriyo waxaad la mid tahay adiga oo yiri ma haysto waqti ugu filan oo aan wax ku cabo ama aan wax ku cuno waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu fiidiyowgu ku cajabiyey inaad like dhahdi si uu bulsho badan u gaaro sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna dhiirigelin ayay noo tahay waad ku mahadsan tahay mar kale la joogaaga